shirkad Sacuudiyana ayaa saamiye ka iibsatay shirkadda isgaarsiinta ee ugu weyn Isbaanishka arrintaasoo lama filaan ku noqotay dowladda Madrid waa sida ay halkaas ku gaadhay sanadkii 1998 Sacuudi Carabiya waxay amar boqortooyo ku aasaastay shirkadda STC si loo hagaajiyo shabakadda telefoonada ee dalka oo xilligaas dhibaatooyin badan qabtay dowladda ayaa si buuxda u lahayd shirkadda kadib sanadkii 2002 STC waxay saamiyadeeda gelisay suuqa saamiyada ee stock marketka waxayna lacagtii ay ku heshay u adeegsatay ballaarin iyo maalgashi cusub intii u dhaxaysay 2007 ilaa 2011 STC si xooggan ay u ballaaratay iyadoo in ka badan $10 bilyan oo dollar ku maalgelisay 7 dal ujeedadeedu waxay ahayd in kala badh dakhligeedu uu ka yimaado suuqyada dibadda si kastaba ahaatee taasi ma dhicin faa'iidada shirkaddu waxay hoos u dhacday 43% marka loo eego heerkii ugu sarreeyay ee gaadhay 2006 halka maalgashiga ay ku samaysay Indonesia uu isu bedelay ku dhawaad $190 milyan oo dollar oo khasaare ah sidaas darteed shirkaddu waxay yaraysay qorshaheedii ballaarinta kadibna STC waxay tallaabo cusub ka qaaday Isbaanishka sanadkii 2023 waxay ku bixisay qiyaastii 2.5 bilyan oo dollar si ay u hesho 9.9% saamiyada shirkadda isgaarsiinta ee Isbaanishka ee Telefónica dowladda Isbaanishka ayaa arrintaas kaga jawaabtay iyadoo iyaduna iibsatay 10% saamiyada shirkadda si ay u sii ahaato saamileyda ugu weyn ee Telefónica ugu dambeyn heshiiska waa la ansixiyay waxaana STC loo ogolaaday kursiga guddiga maamulka ah shirkaddu waxay filaysay in saami qaybsiga ama lacagaha faa'iidada ee joogtada ah ee la bixiyo ay noqon doonaan isha ugu weyn ee dakhliga ka soo laabanaya heshiiskan laakiin Telefónica ayaa markii dambe yaraysay saami qaybsigaas taasoo sababtay in STC ay ka hesho faa'iido ka yar intii ay ka filaysay maalgashigeedii ahaa 2.5 bilyan oo dollar intii arrintan Telefónica socotay STC waxay u weecatay dhinacyo cusub sida adeegyada daruuriga ah cloud computing-ka cyber security-ga iyo digitalka lacagta digitalka ah ee cryptocurrency markii la gaadhay 2024 dakhliga shirkaddu waxa uu dhaafay 20 bilyan oo dollar halka faa'iidada saafiga ah ay kor u kacday 90% barnaamijkada lacag bixinta ayaa isu bedelay STC Bank kaas oo bilaabay hawlgallo bangiyeed oo buuxa sanadkii 2025